Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Kulan wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka. Qodobada aad daawan doontaanna waxaa ka mid noqonaya. maxaa kala socotaa daawade xogta isqariyihii aan muuqiisa iyo maqalkiisa aan la baran xilli uu gaaray magaalada Beledweyne si uu uga mid noqdo baarlamaanka 11aad ee dalka. بعد ما لا عنق تيريستا او انت سو بلاد هوستودا كو افدومن Soomaali inaan nahay aqalqiil naga gashay sal ala nabi. hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax oo la kulmaysa hanjabaadyo culculus haddaysan ka tanaasulin kiiska gabadheeda maxaase ka jira in loo ballan qaaday lacaga waali ah si ay kaga tanaasulsho kiiskaasi. qodobada kale daawadayaal aan idinku soo gudbi doonana halkan waxaa ka mid noqonaya sir culus oo laga helay qaraxii maanta gilgilay xarunta gobolka Hiiraan oo ay ku dhinteen qaar ka mid ah musharaxiin u tartamaya kuraasta taalla Beledweyne. qodobareedkeena ugu dambeeya ee aad daawan doontaan saaxiibayaal waxaa ka mid noqonaya ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble oo u jeestay kuraasta banaadiriga ah kadib markii uu awoodi waayay hakinta kursiga ugu tartamayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. soo dhawaada daawadayaal mar kale waxaad markaan ku soo dhawaataan qodobadii aad soo daawateen faahfaahintooda. haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe inoo saar oo fura gambaleelka si durbadiiba aad u hesho muuqaaladan halkan ku baayno. waa ku baahsan tahay daawashada muuqaalkan aad daawanayso qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentigan aragtidaada inoogu reeb. markaana waxaad ku soo dhawaataa qodobadii aad soo daawatay oo intaasi ka sii faahfaahsan anagoo ku bilaabayna. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa waxa uu soo bandhigay dhowr sawir oo hadalhayn ballaaran ka dhexdhaliya baraha bulshada isagoo u diyaar garoobaya doorashada ka dhacaysa magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Fahad Yaasiin oo ah la taliyaha farmaajo ayaa maanta waxa uu gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ka hor inta uusan u duulin sawir uu ku soo galay qaybta VIP-da la soo galiyay baraha bulshada. Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waa nin wax walba diyaarsaday oo kursi u xiran yahay kaasoo birito lagu dooranayo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo maanta qarax weyn uu ka dhacay kaasoo loo arkay mid siyaasadeysan. sawirka maanta wuxuu Fahad Yaasiin ugu talagalay in uu ku damiyo hadalhaynta qaraxii Beledweyne ka dhacay oo lagu dilay 15 qof kaasoo lala eegtay maqaaxi ku dhow xarunta maamulka gobolka Hiiraan. kursiga hoob 86 waxaa ku fadhiyay Faarax Sheekh Cabduqaadir oo hadda uu kala wareegayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir waxaana wararka qaar ay sheegayaan in taliyii hore ee Nisa uu doonayo in uu ku fadhiisto kursigii Muuday. sawiradiisa oo uu soo bandhigay ayaa siyaabo kala duwan loo fasiray dadka qaar ayaana sheegaya in uu bulshada ku marin habaabinayo iyadoo uu rabo inuu hadda kadib banaanka iskeeno. wuxuu ahaa shakhsi aan sawir laga qaadin oo warbaahintana muuqaalo aysan ka duubin tan iyo 2017 isagoo ahaa qof isqariya oo daaha gadaashiisa wax ka maamula oo villa Soomaaliya ku jira. dhinaca kalena daawadayaal walaac xoogan ayay wajahayaan ehelada ay ka dhalatay Ikraan Tahliil Faarax oo ay sargaalada ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee NISA balse dilkeeda lagu tumayo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo hogaankii kale ee ka tirsanaa NISA. hooyo Qaali Maxamuud Guhaad oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay la kulmaysaa hanjabaadyo culculus oo kaga imaanaya dadcadda Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. hooyada dhashay Ikraan Tahliil Faarax iyo qaar ka mid ah ehelkeeda oo ku sugan magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in fariimahan dadaadaha ay kala kulmayaan rag dadcad ah oo u shaqeeya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo sidoo kalena soo noqday agaasimihii hore ee NISA kuwaas oo dhawaan la geeyo magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Qaali Maxamuud Guhaad ayaa inoo xaqiijisay in loogu hanjabay in la dilayo sababo la xiriira eedaha ay u jeedinayso Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo aan ninka lagu tuumayo dilka gabadheeda Ikraan Tahliil Faarax. waxa ay sheegtay in Fahad uu ka dambeeyo falkan handadaada ah taasoo lagu cabsi gelinayo iyadoo xustay in aysan joojin doonin inay cadaalad u raadiso gabadheeda. Qaali Maxamuud Guhaad ayaa tiri la ima cabsin gelin doono maalinna kama daalayo inaan gabadheeda maskiinta u raadiyo cadaaladda maadaama lagu dilay xaqdarro waana lala xisaabtami doonaa kuwii ka dambeeyay dilkeeda goor ay noqotaba. hooyo Qaali Maxamuud Guhaad ayaa sidoo kale nasiib daro ku tilmaamtay in kuraas loo boobo raggii ku eedeysnaa dilka gabadheeda Ikraan kuwaas oo qaarkood maanta ka tirsan baarlamaanka 11aad ee Soomaaliya.
xubno la rumaysan yahay inay ka tirsan yihiin hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa Ikraan Tahliil Faarax hoygeeda kala baxay bishii Juun ee sanadkii idlaaday 2021 waxayna goor dambe Nisa sheegtay inay dileen dagaalamayaasha Al-Shabaab balse shabaabku waa ay dafireen arrintaasi iyadoo ilaa maanta aysan jirin cid si dhaba u baartay kiiska gabadhaasi oo iyada qudheeda ka tirsaneyd hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Nisa. dhanka kalena qarax weyn ayaa ka dhacay gudaha magaalada Beledweyne ee caasimadda gobolka Hiiraan kaasoo lagu soo beegay xilli xasaasi ah oo doorasho ka dhacaysa magaaladaasi. wararka ayaa sheegaya in qaraxa laga maqlay maqaaxi ku taala aaga Lamagalay oo ay degan yihiin militariga dalka halkaasoo sidoo kale ku dhow xarunta maamulka degmada. goobjooga ku sugnaa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa sheegay in qaraxa uu ahaa mid culus oo ay xigtay rasaas badan waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu ahaa ismiidaamin inkastoo weli la xaqiijin nooca uu ahaa. qaraxa ayaa imaanaya ka hor doorashada kuraasta 25 xildhibaan ee ka imaanaya gobolka Hiiraan kuwaasoo mid ka mid ah Hoob 86 Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu rabo in uu boobo. la taliyaha amniga qaranka madaxweynihii hore ee dalka Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa gaaray magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana la adkeeyay amniga guud ahaan ee magaalada gaar ahaan garoonka Ugaas Khaliif. haddaba daawadayaal waxaa la soo bandhigay magacyada dadkii lagu dilay qaraxii maanta ka dhacay magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxaana ka mid ah Nabadoon Qorane Axmed, Nabadoon Axmed Xuseen Xiirey, Maxamed Cismaan Food Cadde, Axmed Duwane Siilaanyo, Cabdirashiid Shiicali oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii gobolka Hiiraan, Maxamed Cabdullaahi Abtiyo oo ahaa musharax xildhibaan, Dayib Qorane oo ahaa musharax xildhibaan, Cabdirashiid Kaynaan oo ahaa gudoomiye ku-xigeenkii arrimaha bulshada degmada Beledweyne, iyo Mustafa Cabdirashiid oo ka mid ahaa bahda caafimaadka iyo dad kale oo aan weli magacyadooda la helin. qaraxan oo jugtiisa laga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada Beledweyne wuxuu ka dhacay maqaaxi lagu magacaabo Xasan Dhiif oo ku dhow xarunta maamulka gobolka Hiiraan wuxuuna ku soo beegmay xilli Fahad Yaasiin Xaaji Daahir uu ku sii jeeday magaalada. Fahad ayaa gelinkii dambe ee maanta tagay magaalada isagoo qaatay shahaadada musharaxnimo waxaana la filayaa in berito uu boobo kursiga tirsigiisu yahay Hoob 86 oo 8 sano uu ku fadhiyay xildhibaan Faarax Sheekh Cabdiqaadir oo waqtigan dalka uga maqan xaalad caafimaad. ugu dambeyntiina General Stephen Townsend taliyaha Africom ayaa dhawaan booqasho qarsoodi ah ku tagay saldhigyada ciidanka Mareykanka ee Kismaayo iyo Balidoogle. waxaa ku wehliyay safarkiisa Balidoogle safiirka cusub ee Mareykanka Larry Andre iyagoo la kulmay asgar Amerikaan ah kuwa Soomaali ah iyo Amisom isugu jira oo saldhiga deganaa. sida aan ogaanay socdaalka Larry Andre iyo Townsend wuxuu ahaa mid lagu qiimeynaya xaaladda dhulka maadaama madaxweynaha Mareykanka Joe Biden maamulkiisa ka fakarayo in uu dib u soo celiyo ciidankii Trump dalka ka saaray horaantii 2021. Al-Shabaab ayaa weli ah kooxda ugu khatarta badan ee xiriirka la leh Al-Qaacida iyadoo mas'uul ka ah dhimashada kumanaan qof oo aan waxba galabsan oo ay ku jiraan Mareykanka ayuu yiri General Stephen Townsend. Africom ayaa joojisay duqeymihii joogtada ahaa ee lagu qaadayo goobaha ay ka taliso Al-Shabaab waxaana howlgalka la dagaalanka argagixisada la filayaa in uu dhawaan dib u bilowdo maadaama Washington ay ka walaacsan tahay kororka qaraxyada iyo weerarada dagaalamayaasha Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa khatar ku ah danaha Mareykanka ee Soomaaliya ee gobolka Geeska Afrika iyadoo haddii laga aamuso oo aan duqeymo la furin keeni karta in kooxdu ay bartilmaameedsato safaaradaha Mareykanka ee Kenya, Uganda iyo Djibouti sida xogaha sirdoonku ay sheegayaan. Mareykanka ayaa saldhigyo ku leh duleedka Kismaayo iyo Balidoogle oo ciidamo fara ku tirisa hadda ay ka joogaan kuwaasoo tiradooda la kordhinayo iyadoo dib loo soo celinayo duqeymaha oo looga hortegayo inay Al-Shabaab isballaarin iyo abaabul weeraro ay sameeyaan. guud ahaan daawadayaal waa inageynta barnaamijraadkeena haddii aad daawatay muuqaalkan like inoo saar subscribe inoo saar channelka oo ku soo biir fura gambaleelka si durbadiiba ay ku soo gaaraan macluumaadka aanu halkan soo gelino aanu ku baahino. waa ku mahadsan tahay daawadaheena qiimiga lahow daawashada muuqaalkan aad daawatay. haddii aad daawatay muuqaalkan qaybta hoose ee faalada lagu gudbiyo commentiga waxa inoogu reebi karaysaa aragtidaada saliimka ah. tan iyo barnaamijkan mid lacayna inta dib isugu kulmi doonana sidaas iyo nabadgelyo.